waxayna leeyihiin faracyo badan iyo sharciyo. wax walba oo magac ah intaan ayaa loo kala qaybiyaa: magac dad, magac xayawaan, magac alaab. fikradaha iyo dareenka waxaa lagu tiriyaa inay magac ka mid yihiin. sharaxaad kaloo dheeraad ah markii waqtigeeda la gaaro ayaan ka bixi doonaa. haddana waxaan aadaynaa midka labaad. pronoun wuxuu bedelaa booskii magaca, wuxuuna magaca ka ilaaliyaa in lagu soo celiyo. wuxuuna leeyahay faracyo badan iyo sharciyo. noun ayuu la shaqeeyaa. jumlad kastoo Englishana waa inay midkooda lahaataa si u suurta gasho jumla ahaanteeda. waxaana ka mid ah tusaale: he, she, I. Ali is a smart player. He always scores. sida hadda meeshan ka muuqata, he ayaa lagu bedelay